waxay idinka sheekaynayaan gabadh gaalo ah waa gabadh madow oo soo muslinto marka hore gaalo ahay ayaa gabadhaasi waxa iga yaabiyey gabadha anaaba soo muslimiyey waxa iga yaabiyey wax marka la soo muslim yani ana u qabtay shahaadada waxa iga yaabiyey gabadhan siday ninkeeda ula dhaqanto nin baan u guuriyey kaloo madow African American waxaan deganay marka Maryland meelado oo Mareykanka ah ninkii marka wuxuu igu yiraahdaa Saciid iimaan buu dhahaa gabadhu waa cajiib gabadhu ilaahay noo barakay dumarka African American waxa lagu yaqaan dumarka madmadow way soo muslimay Mareykanka degan inay taf yihiin oo ay adag yihiin oo taagan yihiin oo ninka halka hadii goor ay ka jiraan oo laga acuudu billaysto ninkana gabadhiisa wuu amaanaya waana aad buu ugu faraxsan yahay inantii baan u yeeray ii waran baan ku waxay tiri caynka ninka loola dhaqmo ninka caynka loola dhaqmo waxaan ka bartay hooyaday haye waxay tiri hooyaday waa hooyada gaala ayaa aabaheedoo gaala hooyaday bay tiri markuu aabahay yimaado intaanu imaanin bay annakana sii diyaarin jirtay way noo sii maydi jirtay looshi bayna sii marin jirtay wayna sii qurxin jirtay cadar bay noo sii marmarin jirtay annakoo diyaara oo aad moodin inaan daa aroos tegayno xaflad aan tegayno qurqurux badan oo naloo sii meeyo naloo sii subka baa aabahay yimaada markuu jeliska uu alba maftaxa ku dhufto ay tiraahdo shakora yaa waxay tiri marka aabahay hooyadii halka tuwal baa u saaran aabahay kursi baa albaabka u dhigtay bay tiri kursigii bay ku fadhiisisa kabahay ka bixisa mariyihii uu xidhnaa saray ka bixisa tuwaalkiina way siisaa waxay musqusha galo soo meeyo alaabtiisii bay tiri marka musqusha ayay u taala markuu ka soo baxo uu musqusha ka soo baxo cuntadii oo diyaar ayuu u yimaadaa 2 saacadood ayuu asagu nasta ama u raaxaysta maruu cunto cunayo maruu hooyo la sheekaysto 2 saacadood ka bacdi baana la siiyaa bay tiri idniga inaanu aabahay u soo degno markaasaanu soo degna saanu la ciyaara aanu dhudhunkana hadhowna saytaa ordadaba seexda aabihiin berto ka lahaya ixtiraamka marka ninka caynka loo ixtiraamo waxaan ka bartay hooyaday ka bacdina waxaan akhriyay sunnadii nabiga sallallahu alayhi wa sallam caynka ragga loola dhaqmo ayaan bartay waxa jira rag fara badan oo halkan aan maanta hadlaynin oo sida fiidmeerta guriga ka warwareega oo meelaha ma dhamo maqaxibu ka soo sheekaynaya halkan buu kalba halka mar buu hebel leeyo tagaya hebel baan meel geeyay buu oranay inta wuxuu sugayaa inta tii ka seexanayso wogtay ilaahayo tii basi on dheh wuxuu sugayaa inta tii guriga ma sha Allah ka seexanayso waayo wuxuu ogyahay markuu jidda guriga soo galo in lagu bilaabayo maxaad qabatay xagaa tagtay maxaad samaysay dagaal buu marka u diyaar yahay dagaal wallahi mid wuxuu igu yiri qaylan guriga marka albaabka sidaa u fura waxaad moodaa buu inay aniga isugayso buu markan albaabka sidaa u fura waa ay soo fatahda ayadoo qaylansan ka seexdaa buu yiri ayadoo qaylansan waan soo toosa saarna buu tiraahdo habeen isku xaawdhay qaylanaysa mise way nasatay